kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii ugu horreeyey maantoo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay 17 abriil sanadka 2026 iyadoo dhammaan barnaamijka aynu kusoo qaadan doonno akhbaaraadka iyo wararka kasoo kordhay xaaladda gobolka bariga dhexe kuwii ugu dambeeyey ayaynu marka ugu horreysa waxaynu ku bilaabaynaa hay-adda tamarta caalamiga ah ayaa war muhiima soo saartay iyadoo sheegtay in warkan uu yahay digniin weyn oo ku socota wadamada Yurub. haddaba hay-addu waxay sheegtay 6 toddobaad kadib in shidaalka diyaaradaha uu joogsan doono Yurub. shidaalkii diyaaradaha waa gabaabsi 6 toddobaad kadib haddii marinbiyoodka Hormuz sii xirnaado oo mashaqada iyo dhibaatada iyo dagaalku uu sii socdo waxaa leeyahay 6 toddobaad kadib wax diyaaradaha oo ka kacaya Yurub ma jiraan. waa war weyn, waa dadka Yurubiyanka ah war maaragtay dhagahooda aan u fiicnayn. marka aan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera ayaa soo xiganaya hay-adda tamarta caalamiga ah oo war rasmi ah soo saartay saakay waxay sheegtay in shidaalka diyaaradaha ee Yurub uu kaafin karo oo uu ku eg yahay 6 toddobaad oo kaliya. gaaska marka iyo waxa ka dhay diyaaradaha ku duulaan 6 toddobaad kaliya hare. 6 toddobaad maxay tahay? waa bil iyo bar haddii oo Hormuz uu sii xirnaado diyaarad kacaysaba male Yurub. waxaa ka hadlaya waxweeye hay-adda adduunka u qaabilsan waxa la yidhaahdo tamarta shidaalka iyo gaaska iyo waxa kan hay-adda adduunka u qaabilsan digniintaasay soo saartay. waxay leedahay hayaay iska jira reer Yurubow, kaydka diyaaraduhu ay haystaan waa 6 toddobaad kaliya. 6 toddobaad haddii dagaalkan uu sii socdo Yurub wax diyaaradoo ka kacayaba male, madaxa la isla geli doonaa. marka sababtu maxay tahay? sababtu waxa waaye waddanka labaad ee adduunka ugu badan ee gaaska dhoofiya firi batrool iyo waxa kan ma gaaska diyaaradaha iyo waxa kan ay ku duulaan. waddanka koowaad waa Ruushka, waddanka labaad waa Qatar gaaskeedii dhanaa la xanibay, albaabka loo fariistay. marka waa fahmi kartaa culayska ay leedahay. Yurubna maxay ku tiirsaneed waayadan dambe? gaaskan waxay ku tiirsaneed oo maaragtay Qatar, maadaama Ruushka ay dagaalsan yihiin. marka xaalad aad u adag ayaa marka haddaan arrinkan wax laga qaban ayaa soo baxaysaa la leeyahay, oo mushkilad weyn ayaa halkaa ka dhalan karta. marka sheekadu markay halkaa joogto maanta oo jimcaha marka Yurub madaxdeedii Ingiriiska iyo Faransiiska shir ay hogaaminayaan ayaa magaalada Paris ka furmaya. 40 dowladood loo wacay. xaalku marka Yurub waa ku xun. Yurub marka waxay taagan tahay sideen u xallinaa arrinkan Hormuz, sidee u xallinaa iyadoon marka dagaal iyo fidno kale iyo dhibaato kale la gelin. in markaa la diyaariyo 40 dowladood maraakiib iyo ciidan iyo inta keenaan sidii bal arrinkaa loo furdaamin lahaa oo marinka Hormuz sidiisa ku soo noqon lahaa. haddii marinka Hormuz uusan sidiisa ku soo noqon oo dagaalkan iyo fidnadan ay sii socoto, khalaas waa Yurub waa ku dayso, waa diyaaradan ma kacayso, adinka idii taallaa. marka wararkaasaa taagan. markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha ka soo kordhay saakay. Al Jazeera waxay leedahay 40 dowladood ayaa waxay ka hadlayaan qaabka military ahaan wax looga qaban karo arrinta Hormuz iyo nabadgelyada maraakiibta halkaa ku xaniban. haddaba kulan ay wada guddoomin doonaan Faransiiska iyo Britain ayaa la sheegay in kulankaasi maanta oo jimco ah ay isugu iman doonaan ilaa 40 dowladood wakiilo ka socda. waxaana la sheegayaa in dhanka diblomaasiyadda si dhammaystiran looga taageeri doono arrinta Hormuz oo markaa sidii maraakiibta halkaa ku go'doonsan ee ku xaniban loo furdaamin lahaa oo loo furi lahaa. marka meesha maxaa ka garanaysaa culayska dagaalkan uu yeeshay, dhibaatada dagaalkan iyo mushkiladiisa ay markiiba Yurub ku yeelatay.
marka Trumpna muxuu ku sii daray xayiraad kala sii saaray kana sii saa wuxuu ku xumaynaa asagana Yurub ku xumaynaa Yurub dagaalka ila gala inta dhaafo ma diidin ha ayaguna diyaarad la'aan ha ku dhacday dhaafule gaas la'aan iyo waxa ku dhacaan oo mashaakil waayo aan caadi ahayn marka xaaladdu marka halkaas maray kulankaas maanta ka dhici doona Paris oo ay wada jirka ugu doomin doonaan Faransiiska iyo Britain ayaa bal 40 ka dawladood waxay soo saaraan ayaa arki doonaa laakiin hay-adda uqaabilsan tamarta caalamiga leeyahay gaaska iyo shidaalka iyo waxa kan hay-adda qaabilsan waxay soo saartay digniin kama dambaysa 6 toddobaad kaliya idin hartay shidaalka diyaaradahu ku duuli karaan Yurubay arika wax ka qabto Hormuz iska fura waxa ku furtaanba arika maslaxadiisa iyo hawshiisa la galo hawsha halkaas maray ninka kale Trump ayaa mar kale xalay aroortii saakay wuxuu ku celiyay in dagaalka Iran la soo gabagabeynayo oo heshiis la gaari doono waa markii saddexaad ee 48 saac gudahood uu arika sheego marka odaga waxa leeyahay laftirkiisu dagaalka dhibaato ku haya culays ku haya mushkiladu ku haya marka wuxuu leeyahay hadda waa la is afgartay waa la dhameeyay kulanka ugu horeeya oo aan annaga Iiraaniyiintu isu hor fariisano waa arika waa lagu kala tuuri doonaa marka taa waxa leeyahay waxa aad looga shaqeynayay maalmahan oo Pakistan ay u tageysay maaratay Iran Mareykanka waxyaabaha la isku hayaa inta badan laga shaqeynayay inkastoo faahfaahin waxa lagu heshiin doono iyo waxa lagu heshiiyay iyo uusan sheegin haddana wuxuu sheegay in arika heshiis laga gaari doono haddaba aan tusoo wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa wuxuu sheegay in dagaalka Iran uu soo gabagaboobi doono sida ugu dhaqsaha badan ayaa lagu soo gabagabeynayaa iyo ku soo dhamaanaya madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay dagaalka Iran inuu soo gabagaboobayo waxaana uu sheegay in marka hawshaasu ay soo dhamaan doonto arikan waxa uu ka sheegay aroortii saakay kulan ka dhacay Las Vegas dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka la yiraahdo Nevada maanta oo Jimcaha waxaana la sheegay in marka uu arika aad uga hadlay uuna sheegay in dagaalkaasi hadda uu marayo heer gabagaba oo la soo gabagabeynayo marka arimihii la isku hayay meelaha la isla dhigo leeyahay nuclear-kan iyo waxa kana ugu daraa kullay waxba lagu xaliyay waxay tahay marka lama yaqaano oo uu ku xaliyay marka arikaasu halkaas markuu joogo oo arinta Iran iyo hawlaheeda markay joogaan waa taan ogeyn xalay in lagu dhawaaqay xabad joojin Lebanon iyo la dhexdhigay iyo Israa'iil Lebanon iyo Israa'iil xabad joojin ayaa la dhexdhigay oo marka 10 maalmood wasiiradii Israa'iil way xanaaqeen oo waxay ka xanaaqeen arikan iyaga aan lagu wargelin oo Trump iskaga dhawaaqay haddaba si aysan fawdo iyo buuq uusan ula kulmin Netanyahu kulanka axadda dhici lahaa ee wasiirada isugu iman lahaayeen wuu baajiyay dhanka kale wuxuu mar kale codsi u dirsaday madaxweynaha Israa'iil ayuu u dirsaday oo uu leeyahay madaxweynaha Israa'iilow waxaan ka codsanayaa inaad i cafiso si culayska maxkamadeyntan iyo waxa kan igu socdo musuqmaasuqa iyo aan meel isaga saaro maadaama aan dagaalo iyo dhibaatooyin ku jiro ninkii marka madaxweynuhuna wuxuu leeyahay hawshaasi waxay u taalaa garsoorka tala badan waa inaan ka geliyaa hay-adaha garsoorka marka ma iska ka cafin karo marka qaab lagu cafiyo iyo nidaam iyo waa in maxkamaduhu ay la yimaadaan marka hawshaas halkaas mare dhanka kale markaan tusoo wararkii ugu dambeeyay 10,000 oo dadkii barakacay ah oo Lubnaaniyiin ayaa ku laabanaya koonfurta Lubnaan markii la sheegay iyo dhanka koonfureed ee caasimadda Beirut markii xabad joojin la sheegay in halka ay ka dhacday oo marka guryahoodii ay dib ugu laabanayaan qaar badan ayaa la sheegay in guryahoodii oo burburay oo diyaaradaha Israa'iil duqeymo ay ku baabi'iyeen ay halka u tageen oo ay marka aad uga murugoodeen way marka dhanka koonfurta Beirut waa laga qaxay waa meeshii ay dad badan ku laayeen oo xasuuqeen marka dadkii hadda waxay bilaabdib inoogu laabtaan oo guryahoodii iyo meelahoodii ay tagaan marka arikaasuna waa arin farxad leh dadku way isaga faraxsan dadku dagaal ma jecla dadku dagaal way naceen dagaal faa'iido uu leeyahay male
waxaa arkaysaa dadkii iska cabaadayo gacmaha taagayo xabad joojintii ku faraxsano iska marka ilaahay marka dadka dhibaatada iyo mushkilada ay ku jiraan Allah ka dulqaada idin soo gudbinayn haddaba qaybahan ugu dambeeya alaaba waxaynu ku soo qaadanaa akhbaaraadka iyo wararka soo dhaca kuwa ugu waaweyn inta aynu barnaamijka ku jirnay haddaba taliyaha ciidamada Iran ayaa hadlay sideedaba waxa ogaataan ciidanka Iran waa laba ciidan waayo ciidan military caadi ah oo leh ciidankiisii badda ciidankii dhulka ciidankii cirka military caadi ah oo ciidana kow iyo ciidan waxay leeyihiin الحرس الثوري اللي يرادو عيدا كإلالة كعان كإيران أو أساقنا انتاس له معناه بديو ليهاي رولكيو ليهاي إركيو ليها ساقنا مركا واللبا ميليتري واي أي ليهاي إيران مركا وحا هدلي قردوي تاليها عيدا مدى ميليتري إيران معها كوا إلالة كعان كواقوني وحا هدلي ميليتري عادي أيا ورسوسان haddaba marka aanu tuso telefishinka Al-Jazeera wuxuu leeyahay taliyaha ciidamada Iran ayaa wuxuu sheegay gacantooda inay ku hayaan qoriga meesha laga rido waxaana ay sheegeen in mar walba ay u diyaarsan yihiin wixii ka yimaada cadawga sida uu yiri ninkan oo lagu magacaabo General Amir Hatimi ayaa sheegay in ciidanka militarigu ay jawaab ka bixin doonaan dhaqdhaqaaq kasta oo cadawga ay ku soo beegsadaan iyadoo wada hadallo lagu hoos gabanayo inay dhibaato ka geystaan gudaha Iran waxaana uu sheegay in keebka qoriga ay gacanta ku hayaan oo mar walba jawaabta ku filan ay siin doonaan cid allaale iyo cidii weerar ku soo qaada Iran marka maxaa meesha ka muuqda Iran way shakisan tahay dhowr maro hore la gaaday ayadoo iska jireen dhag hogaamiyihii ka dil taliyaashii ka dil kan ka dil hadda marka way taxadarsan yihiin waxay leeyihiin qoriga meesha laga ridaan saas farta ugu haynaa macnaha keebka qoriga saas farta ugu haynaa haddii wax yar xadguduba aan dareenno saasaan gataalaa u firdhinayna ninka dhahay waaye waa taliyaha ciidamada militariga ee wadanka Iran warkaas ayaa ahaa kii ugu dambeeyay soo kordhay jimco wanaagsan ayaan idin leeyahay asxaabay mar walba ku xirnaada barnaamijyadeena xaqiiqada ku salaysan inagoo mar walba idin la wadaagna macluumaadka iyo wararka soo kordha halka ay ka yimaadeen like gareey oo share gareey barnaamijka hadaad cusub tahayna subscribe-ka ka ilooba YouTube-ka Facebook-na follow gareey inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno nabadgelyo